Neko Jenkins dhalinyarkii wejiga shaydaanka lahaa dadyowa Mareykankana ay aad uga baqaan. Kani waa dhalinyaro dilaa ah. Isagoo 15 jir ah ayuu iskoolkiisa ku dilay wiil dhalinyaro ah. Kadib waxaa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah. Muddo 10 sano kadib markii uu soo dhameystay xabsiga waxa laga qafiifiyay xukunkii oo waxa loo fidiyay cafis. balse markii xabsiga laga soo daayay muddo 10 bari gudahood ayuu mar kale ku dilay 4 qof. markii uu ka soo baxay xabsigana ugu horreyn hooyadiis waxay hadiyad ahaan ugu soo iibisay biskoolad, waana midan hadda idin muuqata oo iyadana xabsi ku mutaysatay arintaasi. markii uu xabsiga ka soo baxay hooyadiina ay u soo iibisay biskoolada, isaga iyo waxa markaa magaalada isku raacay 2 gabdhood oo la dhashay oo iyagana dilaa ah. waxay aadeen magaalada bartamaheed ayaa waxay ku arkeen 2 dhalinyaro oo sita gaari, waxayna rabeen gabdhaha inay ka dhacaan gaariga wiilashaasi. waxayna go'aansadeen inay shukaansadaan kadibna ay soo kaxeeyaan meel cidla. markii la yimaadana walaalkood oo halka ku toogto. markii arinta sidaa u dhacday kadib mid ka mid ah gabdhaha ayaa dilka ka qayb qaatay, iyadana waxa lagu xukumay xabsi. haddaba Neko sheekadiisu maxay tahay? isagoo yar wuxuu arki jiray faamil dhammaantood wada dilaa ah oo isticmaalo daroogo. wuxuu arki jiray hooyadii iyo aabihii oo mar walba u kala tartamaya daroogada iyo dilka intuba. sabirka idin muuqdana wuxuu ku sheegay maskaasi inuu amray inuu dadka dilo. haddaba ninkani dilaaga ah ee halista ah wuxuu jecel yahay mar walba oo uu kaamirada ka soo muuqdo sida filimaanta lagu arkaba nimanka aktarada ama laadirinta waxyaabaha ay ku dhaqmaan oo kale ayuu actionkoodii ku jiraa. isagoo qayrinaya ama isagoo dadka cabsiinaya ayuu kaamirada jecel yahay inuu ka soo muuqdo. haddaba sheekada ninkan ee lagu magacaabo Neko dadka Mareykankana ee aad uga baqaan dilaaga halista ah ee reer Mareykan. wuxuu ka soo jeedaa qoys dhammaantood wada dilaa ah. hooyadii waa dilaa, aabihii waa dilaa, adeeradii waa dilaa, walaalihii waa dilaa, faamilka oo dhan waa wada dilaa. wejigiisa dhaawacyada ka muuqdana isaga ayaa isku geystay intuu xabsiga ku jiro wuxuu damcay inuu isdilo. sawirkan hadda idin muuqda dhammaan waa faamilkiis. kulligoodna waxay ahaayeen dad iyagoo jecel dhiigga dadka. mar maxkamad la soo taagay ninkani waxa uu sheegay in dilka uu ku raaxaysto. sababtaasina ay keentay in marka horeba isaga loo waxyooday dilkana lagu amro inuu dadka dilo. markii la weydiiyay wuxuu ku sheegay mas xilligii faraacinta jiray oo ku sugan Masar inuu dilka ku amro mar walba. dhaqaatiirta ayaa maskaxdiisa baaray waxaana la ogaaday inuusan wax xanuun ah qabin, balse haddartan wuxuu wajahayaa xukunkii dilka ah. horey nasiib ayuu u yeeshay oo 10 sano kadib waa uu soo baxay, balse xabsigii ayuu dib ugu laabtay. xabsiga gudihiisna aad baa looga baqaa. wejigiisa sida idin muuqatana dhammaan waxa uu ka dhigay sida shaydaankii oo kale. saaxiibkiisna asaa gacantiisa ku dilay.